dadka xunxun iyo bulshada xun ku dhex noolaanshaheeduna waa taa hore oo nabigu ku tusaaliyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh ninkaa dabka shiday annaga marka isma ogin iskamana war hayno laakiin waxaa gubanaya qoysaskii baa gubanaya sistamka iyo nidaamka qoysaska ilaahay ugu talagalay inay u noolaadaan waxaa bedelaya sistamka iyo nidaamka bulshadan aad dhex timaadeen qoysaskooda u nool yihiin mana kari kartaan mana caabin kartaan mana isticlin kartaan nabigeenu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل النبي صلى الله عليه وسلم ورنينك الروح صاحبك اللي هي بوك الدين هي ولا الدين نقول هي عدة الله صاحبه يسان كفي اقتضب النبي صلى الله عليه وسلم هذا قمن والدين له خير بدن هذا عيال سوق صاحب لنا قطمان من عيال سوق بالنغني هذا خيار هذا هو أشرار الله صاحب ثمانين ضد أشرار بالنغني هذا قيمة له هذا هو أن قيمة له الله صاحب ثمانين ضد قيمة الرمى تصدق لماذا؟ إننا وحكوا شيء بالغيابة لكن رقم كورا كسامين marka saamaynta bulshooyinku ay isku sameeyaan ama adigu kugu yeelanayaan waa mas'ala iska nabiga nuux sallallahu alayhi wasallam la tusahib illa mu'minan ruuhan mu'minan alla saaxiibin hana la dig dariskaaga shaariicaaga dawladda ku hoosnooshahay bulshada aad yaani kugu wareegsan kulligood waa waxa saameynaya noloshaada saameynaya mushkilada horta ina haysatay koow oo qoysaskana haysatay waa mawjadaas iyo dabaylaha xoog badan ee haya weerarkana ku ah wixii dhaqan iyo diin u ahaa kow mushkilada koobaad mushkilada labaad waxa weeyaan izdiwaajiyatu talaqi wa tarbiya almutacaadida hadii bini aadamka ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo quraanku ku sheegay ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi Allah subhanahu wa ta'ala ruuxa bini aadamka laba qalbi uma sameeynin waa hal qalbi uu leeyahay xubinka qalbiga la yiraahdo ee bini aadamka wax qaadaay waa hal meel waa hal mid ruux laba qalbi leh ama laba wadna leh ilaahay ma abuuray subhanahu wa ta'ala maadaama ay tahay wadnaha iyo qalbigu mid haduu yahay hal mabda buu aqbali karaa hal mabda buu aqbali karaa laba mabda wadnaha isuma tagi karaa الله سبحانه وتعالى حبن او ابوري او aad cagsa badan oo jirka meesha xarunta laga maamulo xubinka yarka ah jirka xaruntiisa laba mabda ma wada qaadan karo kufri iyo iimaan ma wada gali karaan dhaqan islaamka ka soo jeeda iyo dhaqan gaala ka soo jeedana ma wada gali karaan qoyskii muslimka ahaa dhaqan gaala ka soo jeeda iyo dhaqan diinta islaamka ka soo jeeda isuguma tagi karaan laba shay oo iska soo horjeedo oo dab iyo biyo isku ah meel kuma kulmi karaan mashaakisha marka haysata waxa kamid ah qoysaskii wadamadan reer galbeedka yimid waxa kamid ah dhaqankii xagga ay kala yimaadeen oo islaam ahaa dhaqankii halkan ay ugu yimaadeen oo gaal labadaas kala jiidanaya marka labadaas kala jiidanaya laba dhaqan ruux ay kala jiidanayaan akhiiran marka dambe wareer ku soo bixi rabbi quraanku ku tilmaamay subhanahu wa ta'ala masalada dhowr aayadood baa lagu tilmaamay shariicada islaamku waa diiday haba yaraatee ruuxa muslimka qoyska muslimka dawladda muslimka halka nidaam ilaahay soo dejiyay waxaan ahayn inay mid kale ku barxaan waa diiday rabbi subhanahu wa ta'ala wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله جدكيغي توسنا وكاب ربي سبحانه وتعالى جدكا يريركا ee ka leexanaya dhinacyaha maraya harraacina isaga kii mara jidka toosan waa quraanka iyo sunnada nabigeena sallallahu alayhi wasallam waa isaga mid kala doonayo nolosheena dhan inuu noqdo qoysaska in lagu saleeyo maamulka qoysku ku saleeyo qaab dhaqanka qoysku ku saleeyo tarbiyada caruurta ku saleeyo bulshada maamulkeeda iyo nidaamkeeda iyo xiriirkeedu ku saleeyo rabbi subhanahu wa ta'ala ku talagalay taa nidaam kale marka hadii uu lagu garab wadaayo bini aadamkii ma qaybsami karo rabbi subhanahu wa ta'ala tusalaha uu bixiyo fiir ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون
warajulan salaman lirajulin hal yastawiyaani masalan buu alla subxana watacala alla wuxuu tusaale samaynayaa nin ay wada leeyihiin koox buu ka dhexeeya dad badan buu ka dhexeeya waa addoon sayidiye badan baa isku leh sayidyada isku leh ee uu ka dhexeeyana ayagaaban isku kalsoonayn oo dad iyaguba iskhilaafsan wey 5 ilaa 6 nin ilaa 10 nin oo waxaa isku leh ayaga laftooduba isdiidan addoon kale oo hal nin aleeyahay oo hal meel amarka ka qaatana waa ka isaguna labadaasi ma siman yihiin baa la yidhi subxana watacala labadaasi ma siman yihiin hal meel ah inaad ka dambayso hal ilaah leedahay hal sharci a leedahay hal nidaam leedahay hal dhinaca u wada jeeda adiga reerkaagu waa midda bini aadam toosani kusoo bixi karo qoys toosanoo hagaagsan kusoo bixi karo laakiin qoys dhowr nidaam ay isku haystaan xagga nidaamkii reer galbeedkaa ka jiidanaya xagga nidaamkii islaamkaa ka jiidanaya xagga nidaamkii soomaaliga iyo taqaaliiddii caadaadkii baa jiidanaya qoys noocaas oo kaleeto oo 100 nidaam isku haystaan waa wareeraya walaa shaka fi dalik meel dhexaad buuna kusoo dhacaya rabbi subxaana watacaala marka miduu inoo tilmaamaya taa wey shakina kuma jiro taa ilaahay subxaana watacaala inoo tilmaamay iyo nidaamka uu qoyska ugu talagalay haddii uu qoysku mari waayo oo nidaamyo kaleeto iyo dhaqamo kaleeto uu qaato in uu fasaadayo shaki kuma jiro walaw ittabaca alxaqu ahwaa'ahum lafasadat الsamaawaat wاlarض bu rabbi subxana watacala xaqu hadduu raaci lahaa say rabaan samaawaadkiiyo dhulalku way fasaadi lahayn bini aadamku say rabaan say noloshooda u rabaan say caqiidadooda u rabaan say cibaadadooda u rabaan dhaqanka ay doonayaan waxay iyagu dejisteen hadduu xaqu raaci lahaa samaduna ma dhisnaateen dhulkuna ma dhisnaadeen waa fasaadi lahayn qoyska 100ka nidaam ka amar qaadanayaay waa fasaadayaa waa wareerayaa ma hagaagsanaanayo ma deganaanayo xasilooni male qas ka bixi maayo carruur wanaagsanna ka soo bixi mayso maxaa yeelay 100 nidaam baa u taliya 100 nidaam buu ka amar qaataa markanuu ku socdaa marna kanuu ku socda markanuu khilaafaya markanuu khilaafaya haba yaraatee waxaan hal nidaam lahayn maba socon karayo samaawaadkan iyo dhulalkan aad arkaysaan rabbi wuxuu yihi subxaana watacaala law kaana fiihima aalihatun ila allahu lafasadata samaawaadkan iyo dhulalkani hadday ilaahyo kaloon alla ahayn ay lahaan lahaayeen way fasaadi lahaayeen bu rabbi subxana watacala waxay ku jiraan oo maalinkaynu aragnay ilaa maalinka maanta hal nidaam bay ku socdaan qoraxdii meel bay ka soo baxaysaa meeshii bay u dhacdaa dayixii waa soo baxayaa meeshiisiibuu u dhacaa yacni waxa weeye samadii waa dhisan tahay wax isbeddela kama muuqdo dayactir uma baahana dhulkii waa dhisan yahay bini aadamkii sidiisiibuu u tarmayaa nidaamkan wax ku socdaan macnaheedu waxay kutusaysaa hal ilaah baa ka dambeeya haddiise laakiin ilaahyo fara badan ay jiri lahaayeen oo meeshan yani wada maamulaay ma dhisnaadeen 100 nidaam bini aadamku kuma socon karo 100 nidaam ma wada maamuli karo 2 nidaam kama dhaxayn karo mushkilada marka ina haysatahay waxay tahay qoysaskeenii aynu meeshan la nimid oo aynu ku soo kornay mujtamac iyo biica mucayana oo nidaam mucayana ku nool diin islaam dhaqankeeda oo dhinac iyadana ah oo diintii aynu sheeganaynay macnaha islaamnimadaan sheeganaynay tanaynu la nimid waxaa ina qabsaday marka mawjad aan sahlanayn oo bulsho samaysan cariiq ah xididaysatay nidaamkeedu uusan sahlanayn yacni wax alla waxay ku baahin lahayd oo barnaamijkeeda ku fidin lahayd oo imkaaniyaada haysata ayaynu marka kusoo dhexdhacnay nin marka waxa weeye yacni badweyn ku dhexdhacayo nin badweyn ku dhexdhacay biyo iskama dhawro iskama ilaalin kartid marka waxaa marka halisyada ina haysta ka mid ah oo khatarada ugu fara badan ina haysta ka mid a isdiwaajiyadaas qoysaskii muslimka ahaa nidaamkii islaamkana ay ka soo guureen kii gaaladana ayna la qabsanin oo dee mayna gaaloobin saas daraaddeed laba ragdhexaad bay ka laalaadaan qoysaskii marka dhibaatooyinka haysta ayay ka mid tahay dhibaatooyinka haysta waxaa ka mid a qoysaska waxa la yidhaahdo runtii
annagoo aad ugu jilicsan ama ugu dabacsan waxa la yidhahdo qasdul fikriga ama duulaanka maskaxda, khaasatan haddaynu nahay bulshadii Soomaaliyeed ee waqti dhow yimid. saad ogsoon tihiin dad waxaynu nahay xadaarada iyo horumarka iyo teknolojiyada iyo waxyaalahan adduunyada ee bini aadamka maanta maskaxda lagaga qaadayo laynagu khayaamayo ee laynagu sirayahay dad aad ugu daciifiin oo ku liitaan meel tuulooyina nolol iska bidaa'iya oo iska bilow ah meel baadiye ah dhulkaasaynu ka nid waxaynu ku soo dhexdhacnay marka nolol aynu inteena badanba u aragno inay tahay jannadii la raadinayo janno laabanba ma jirto. maxaa lagu gaadhay baa soo baxaysa dooma guryahan quruxda badan, wadooyinkan hagaagsan, nidaamkan iyo kala dambayntan, nabadgeliyadan, waxaan maxaa lagu gaadhay? waxaa lagu gaadhay idinkuna dhaqan baad lahaydeen oo idin dibriday, annaguna dhaqan baan leenahay na hormariyey. horumarkiinuna wuxuu ku xidhan yahay dhaqankaanu haysanay inaad qaadataan. ma rabtaan inaad horbaadaan, ilbaxdaan, nabadgelye heshaan, teknolojiye heshaan, horumar samaysaan, qaata meeshaanu soo marnay soo mara. intii tilaabo ee bulshooyinku reer galbeedku soo maraan la leeyahay marka tan soo qaata, tan ku xijiya, tan ku xijiya, tan ku xijiya. markaa kadib aad magaalooyinku quruxsan helaysaan iyo nolol qurux badan iyo nabadgelyo iyo nidaam iyo kala dambayn iyo teknolojiya markaasaad gaadhaysa. markaasaa waxaa laynoo adeegsanaya wasaa'il runtii waxa weeye qaarkood khatarta ay leeyihiin wax la sawiri kara bay ahayd. telefishinkii baa lagu adeegsanayaa gurigii ku dhex yaalla, idaacaddii baa lagu adeegsanayaa, joornaalkii baa lagu adeegsanayaa, waxaa lagu adeegsanayaa shaaric iyo jidkii baa lagu adeegsanayaa, iskuulladii iyo goobihii waxbarashadaa lagu adeegsanayaa, jaamacaadkii baa lagu adeegsanayaa. muhimmaddu maxay tahay marka? muhimmaddu waxa weeyaan in lagaa dhaadhiciyo adiguna waa dambaysaa waana lagaa horreeyaa. waan dambeeyaa haddaad ictiraafto macnaheedu waxa weye raadkayga soo raaca wey marka. war dhaqankaad haysan jirteen ma fiicnayn, qoysaskiinu say u dhaqnaayeen ma fiicnayn, waxbarashadiinnii way liidatay, jinsigiinna waa liitaa, diintiinnu waa liidataa. maxaan samaynaa? taanada soo raaca. waa inta duulaanka marka maskaxda waa midka ka dhigay in badanoo inaga mid ah in aynu raadinno sidii aynu u jiri lahayn reer galbeedkiiyo dhaqamadooda. dadkii da'yarta ahaa, dhalinyaradii, yacni dumarkii, qoysaskii, waaba la isgaadhsiin lahay meel laga gaadho dhaqankoodii baa sidii yaa tartan loogu jiraa sidii loo qaadan laha. markaasaa waxaa laysku ammaanayaa ninba ninkii uu macnaha kaga horreeyo, ninba ninkuu kaga horreeyey iyo qoysba qoyskuu kaga horreeyay buu ka ammaanaya. labaan kala saari laanahay marka. labada inaga jira keen khaldan waxay tahay waxa la yidhaahdo horumarka adduunka iyo mas'alada dhaqamada iyo akhlaaqda iyo nidaamka nolosha way kala gedisan yihiin. horumarka iyo xadaaraadka iyo ilbaxnimada iyo teknolojiyada iyo waxani waa wax ummadaha oo dhan ka dhexeeya wey. waa wax la wadaago wey. waa wax islaamkuna uu dawr iyo kaalin ku lahaa oo meel soo gaadhsiiyey. reer galbeedka iyo gaaladuna ay ka faa'iidaysteen oo markii dambe heer gaadhsiiyeen. berritana waa laga yaabaa inta laga qaato ummado kale inay sii kobciyaan oo meelayna gaadhsiinin inay gaadhsiiyaan. waa wax saasoo bulshooyinku isu dhidhiibaan, ninba maalin dawrkiisa iyo kaalintiisa u qaadanayo. waxaan kadaata marka taasi waa noocaas. laakiin mas'alaa jirto oo ka qiimo badan birtan la hagaajiyey iyo nolosha bini aadamka la sahlay iyo facilitieskan faraha badan ee la bixiyey iyo wax ka qiimo badan baa jiroon inagu haysanno laakiin gaal ayna haysan. maxaan haysanaa? waxaan haysanaa alqiyam alakhlaaqiya, diin iyo akhlaaq iyo dhisnaan iyo nadaafad iyo wixii bini aadam qiimo ku yeelan lahaa baynu leenahay. sharaf buu ilahay ina siiyey subxana wa tacala. sharafta rabbigeen ina siiyey, qoysaskeenna siiyey, innaga ina siiyey, carruurteenna siiyey, aynu asal u lahayn oo macnaha waxa weeyaan aynu ku dhalannay. sharaftaasaa la doonayaa inaynu gadno, sharaftaasaa la doonayaa inaynu beecinno.
inaad u aragtaan loo baahan yahay ninkan aad la soo degteed ee daristeen inaad adigu kaga qiimo badan tahay dhankii bini aadamnimada. waxoogaa birta hadduu kugu dhaafayna birta weligeedba waa la isku dhaafay ya oo bir la isku dhaafay dee innagaa seexanay sax innagaa ka seexanay laakiin bir baa lagugu dhaafay macnaheedu ma aha bini aadamnimadii iyo qiyamkii iyo akhlaaqdii iyo diin iyo wixii bini aadan ku ahaa baa lagugu dhaafay maaha labadaa marka in la kala saaray u baahan tahay. innaga dhaqankii ilaahay inoo soo dejiyey qoysaskeenna ugu talagalay mid ka qiimo badan reer galbeed ma hayaan. bal idinkaa iiga xogogaalsane reer galbeed qoysas uma dhisna, carruurna uma samaysna, nin iyo naag isku kalsoon oo guri wada degan oo isku hagaagsan oona ma laha. sidaa ay u burbureen unbaan innaguna kusii soconnaayoo burburkaasaan innagana wax moodayna. mas'alada aan doonayna marka inay naga dhacdhacdo waxay tahay innagaa ka fiican dhismaha qoyska, nidaamka qoyska innagaa kaga fiican, dhismaha bulshada innagaa kaga fiican, diin baynu kaga fiicannahay, akhlaaq baan kaga fiicannahay. taa waa inaan dhahno na soo raaca, taa waa inaan dhahno na soo raaca waa inaan dhahno. annagaa idinkaga fiicane bini aadamnimadii waa ka baxdeen, xoolaad u baxdeen xoolo. inhum ilaa kal ancaami bal hum adallu sabiilan. dhankii xoolahaad u baxdeen bini aadamnimo hoos baad uga dhacdeen. markii akhlaaq la joogo iyo bini aadam wuxuu bini aadam ku ahaa waad ka baxdeen ku soo noqdo kaalay aan idin barne. laakiin haddii aad u baahan tihiin adduunyo iyo qaabkee baa maamul loo sameeyaa iyo qaabkee baa macnaha wax weeyaan maaragtay yani waxa weeye culumta adduunyada oy ku horumareen oy ka midho keeneen aan ka faa'iidaysan. laakiin wixii qashinkoodii iyo akhlaaqdoodii iyo dhaqan xumadoodii iyo gurigooda qaabkay u maamulayeen taas yaan marnaba maskaxdeenna laga dhaadhicin waan idinkaga fiicannahay yaynaana u arkin inay inagaga sitaan. waana dhib ina haysta runtii adduunyada iyo qalbigeenna say u gashay baa wuxuu keenay haddii aadba dhankii adduunyada kor u fiirinaysaan ood marti u tihiin ood iyagu idin soo dejiyeen wixii kaleo dhanna inaad ku raacdaan. khaasatan dadkii macnaha caqli gaabnaa, dadkii aan horay diin u lahayn, dadkii akhlaaqdu ku liidatay inay dabayshu ina qaadaayeen yaanu iskala reebna insha allahu tacaala. waktigii ayaa dhammaaday. muxaadarada qaybaheeda dambe biidn illahi tabaaraka wa tacaala waktiyada dambe ayaan ka dhigi doonaa. hada billahi tawfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سؤاله ما دام شيخنا كشيكيين انا نسوقناهي culayska qoysaskayna saaran waa lagu wareeray farabadnidooda iyo kala soocooda. sidaa awgeed waxaa jiri doona insha allahu tacaala bal nadwo fiqiya oo ku saabsan insha allahu tacaala su-aalo kuwaasaa intii badnayd loo dibdhigay. intan xitaa hadda taale lagama gaadho. sidaa awgeed qofkii su-aashii sii waaya ha ku talagalo insha allahu tacaala inay siinta iyo wixii loo gaadho nadwada fiqiga ay kusoo bixi doonto haddii abeedmo. sheikh su-aasha koowaad waxay odhanaysaa maadaama saa tilmaantay oo aada iyo aada u badan yahay burburka qoysasku isla markaana ay biyo nasitaan, maxaad nagula talinaysaa haddaanu nahay qoysaska soomaaliyeed ee degan dhulka kan galbeedka? bismillahi raxmaan raxiim. waxaan u malinayaa ila taliin jawaabta ka horreysa waxay tahay taladii ma qaadanaysaan. wax badan baa laydinla taliyay haddaad qaadanaysaan, laakiin tala aan loo soo jeedin waxaan u malinayaa inaydaan nagu lagoynin. intaad waddamadan reer galbeedka dhex degan tihiin wadaad kasta oo meeshan tala idinku siiyaay waa uu nin idinle badweyn baa ku dhex jirtaane biyaha iska ilaaliya. adoo biyo ku dhex jira haddana biyihi miyaa iska ilaalin karta? waa masale adag. xalka haddii la yidhahda kama dambaystaa waa xalka in badan lagu celceliyey. in lagu celceliyana ay waajib tahay. inaad garuusataan oo fahantaanna ay waajib tahay. inaad fulisaanna ay ka sixayso. maxay tahay? waxa weeyaan in badweyn ku dhex jiraay biyo iskama dhowreen. biyaha iyo badweynta saad ka dhex baxdaan banaanka istaaga, banaanka uga baxa. markaasaad ingegaysaan oo qoyaankaad iska ilaalin karta. hadday noqoto bal sheekhu taasi waa adag tahay, bal xal ka sokay raaraadi
hobalqiil loo raadi hadday tahay arrin hadda waxa weeye qiilkii intaa ka sokeeye la heli karaayo waxa weeyaan uun mar uun biyo haddii la waayo maxaa la sameeya ya adoo dahaaro u baahan haddaad biyo weydo maxaa la sameeya waa la gebagabaystaa sooma wixii intaa ka sokeeye waa un gebagabays bodhaysi taqriiban marka ilaahay subxaana watacaala inoo kaalmeeyo waxaan dhihi lahaa ilaahay subxaana watacaala walaalayaal intaad kaashataan ood allah tala saarataan ood iimaankii iyo kalsoonidii mu'miniinta lagu yaqaanay qaadataan sidii aad diintiina u badbaadin lahaydin ku dadaala haddaad meeshan joogtaan ood carruur iyo xaasad keenteen bal waxaa la yidhahdaa maa laa yudraku kulluhu laa yutraku julluhu waxaan la wada haleeli karin wixii laga qaban kara lagama tago intaad meesha joogto waxaad qaban karta qabo ama islaamic school carruur la geeyo reerkii iyo yani waxa weeye islaamihii iyo qoysaskii hal xaafad soo wada dejisaan maraakiista islaamka iyo meelahaas khayrku ka socdood ka ag badataan idinka isla joogidiina oo badatay iyo isu heshigiina waxyaalahaas waa waxyaalo yaryaroo runtii la dhihi karo ilaa xaddi maa waa gebagabaysigaas iyo maarata moodhaysiga laakiin xalka rasmiga ee mar walba lagu soo celinayo waa tii rasuulkeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh qur-aankuna inoo jideeyey xal kaleeta ma lihin ooan ka ahayn inaan carruurta iyo reeraha ka rarno waddamada reer galbeedka hada bilahi su-aasha kalena waxay odhanaysaa sheikh dunidan galbeedka waxaa aad u badan burburka qoyska waxaana keenaa qawaamadii ninka oo meesha ka baxda waxaana ka qayb qaata gabdhaha oo badanaa marka la isqabto gaalada u xukun taga ama booliska laga dacweeyo reerkii markaana laga dhex saaro marka muxuu noqonayaa uxukuntan inay gabdhuhu aadaan ama u xukun tagaan booliiska oo markaa sidaa reerkii laga dhex saaro haddiise markaa carruurtaasi ay gaalowdo oo sidaa ay ku xumaato anigana layga dhex saaray ama layga qaaday miyaan dembi ku yeelanayaa ilaa maalinkii ugu horreysay bulshooyinkan waddamada reer galbeedka yimid aan u imid ilaa maalinkaa maanta su-aashaasi waa in soo noqnoqonaysa ilaahay amarka ilmihii baa layga dhex saaray ee mas-uuliyad miyaan ku leeyahay iyo maxaad mas-uuliyad ugu yeelan weyda adaa keenay meesha ama halagaa dhex saaro ama yaan lagaa dhex saari ninka meesha keenay oo sababta u noqday adiga wey haddaad adigu sabab u tahay meelaad uga baxsanaysa ilaahu maa banaanka lagu tuuraad sheegiye maa 100 goor banaanka lagu geeye meelaad kaga baxsanaysa xilka iyo mas-uuliyadda adigaa mas-uul ah الرجال قوامون على النساء يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته النبي صلى الله عليه وسلم marka meel laga baxsan mayso meel laga fakanayso hadday ilmaha si gaalooban ilaahay ma qadaro subhanahu wa ta'ala kama dhigo alle hadday gaalooban ada mas'uulka haweentaas haddii diinteeda wax soo gaadho adaa keenay kuwa qaraabada aad tihiineed meeshan ku soo ururisay adaa keenay adaa sabab taa macnaheedu maaha isaguna inuu bari yahay isagana waa mas-uul hadduu qaangaadhi laakiin shaki kuma laha inaad qayli wax ku leedahay dembigiisa iyo khaladka uu galay mas'alada qawaamada ragga iyo mas-uuliyadooda iyo xilka ka saaran iyo guriga hadduu khilaaf yimaado see loo xalliyaa waa duruusaha inoo soo socda insha allahu tacala muxaadarada qaybaheeda dambe wey xilligaa umaan ka hadli doonaa wabilahi tawfiiq akhwaan insha allahu tacaala su-aashan ayaan ugu dambaysiinaynaa haddii aad baydno su-aashu waxay tahay saa-ilku wuxuu leeyahay waxaan isu qaban qaabiyey sheikh inaan guuro kabacdina gabadhii waa iga diiday waxayna tiri anigu kula guuri maayo ifur kabacdina waxaan ku ihi waan ku furayaa laakiin carruurtu waan kaxaysanayaa arrinkaas ayaana kaga xidhay furiinkeedii marka miyaan dulmiyey haddii aan ku xidhay furiinkeedii inay carruurta
aan kaxaysto oo dhul muslim la aado. caruurta waxa weeye sharciyada islaamku siday qabto labada waalid kolba xagga diintooda midka ay maslaxadooda ku jirto ayaa la raacinaya. haddii labada waalid ay noqoto in la wada joogi waayo ilmaha waxaa loo danaynayaa intaan adduunyadooda iyo biilkooda iyo noloshooda laga fikirin waxaa laga fikirayaa diintooda laga fikiraya iyadaa mudnaanta koobaad. ninkaas oo su-aasha soo qoray waxaa dhihi lahaa horta marka koobaad ilaahay subxaana watacaala kaasho ilaahay ku qalmeeyo. marka labaad runtii ma asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can katiir. waxaan inagu kasbannay oon shaqaysanay abaalkeedii un weyey meelba kama imaanin. wax shalayto aadan ka fiirsanin un midhaheedii wey. ilaahay u soo wadkeen subxaana watacaala oo allah usoo noqo adee khaladka galay. khaladkii aad gashay ciqaabtiisii umaa maanta ku haysa. masalada labaad waxaan ku dhihi lahaa reerka sidaad shalay u wada keentay maantana inaad u wada celin karto ku dadaal. farsamo aad isticmaashaba iyo si aad yeeshaba ilaahay kaalmadiisana cusko. ilahay baa wax fududeeya subxaana watacaala. gabadha inuu ilaahay qalbigeeda soo jeediyo, arrinta ku qanciyo, geed gaaban iyo geed dheer u fuul, asbaabteedii la imow. kuguma talinayo in aad reerkii carruurtii ka kala tagto, laantii ka tagto, adiga keligaa cararto. hadda adiga keligaa cararkaagu muxuu macno leeyahy? adiga keligaa cararkaagu wax macno uu samaynayo ma jiro. carruurtii aad keentay iyo reerkaad keentay sidii aad ku badbaadin lahayd inaad ku dadaashay u baahanta. marka allah intaad kaashato subxaana watacaala farsamo iyo qaabkii aad isticmaali lahayd kollay nin walba iyo tabtiisa iyo kolba sidii ilaahay u waafajiyay ku xidhan tahay. arrintuna waxayna ka fursanaynin oo kollay aynan ka fursanaynin in aad sidii wax aad u suursuurin lahayd oo wax u maaragtay u farsamayn lahayd oo aad ku dadaasho. laakiin marnaba kuma dhahayo reerkii ka dhaqa. gabadha furitaankeeda haddaad ilmaha isii ku xidho, hadda su-aashu waxay tahay kuma siinaya hadday ku tidhaahdo meeshana kaaga xoog badanta, nidaamkiina ayada garab siinayo. hadda waxa weeyaan waan kufuri unbaad la taagnaan. xaaladii waad sii dhabtiseen, waad sii xumay, xama sii hagaagin. asal ahaan ninku inuu yidhaahdo gabadha xaggeeda hadday diidmadu ka socoto inuu yidhaahdo isfuro oo masaladii khuluca lagu saleeyo waa heli kara. ilmaha diintooda hadday tahay waa la heli karaa. laakiin waaqican Norway ka jira ama wadamada reer galbeedka ka jiraay waa waaqic si gooniya in wax loo cilaajiyo u baahan, si gooniya in wax loo daaweeyo u baahan. waaqic yani ma aha yani waxa weeyaan sidii inagoo xagga joogno kaleeto loola dhaqmi kara ma aha. warka murtidiisa waxa weeyaan nin tuur leh sabuu u seexday isaga yaqaanay soomaalida xaaladda khaaska ah. bal waxaan ku dhihi lahaa culimada kula joogtana aada ula tasho, adiguna ha ku degdegina xaaladda si fiican u daraasee. ilaahayna la kaasho subxana watacaala. allana waxaan baryaynaa inuu gabadha qalbigeeda usoo jeediyo wixii khayra adiga iyo iyada iyo ilmahaba. samaan ilahi idin waafajiya subxana watacala wabilahi tawfiiq.